الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دبادا qodobada wararka janalkeena daynila TV ugu door koron waxaana kamid noqonaya mooto bajaajle lagu toogtay magaalada Muqdisho kulamo looga soo horjeedo maamulka Puntland oo ka bilowday gobolka Sanaaga safiiro gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan maxaa ka jira in dawladda dhexe ay ciidamo si qarsoodi ah uga qoratay waqooyiga Galkacyo ee Puntland xildhibaan Mahad Salaad oo sheegay in la hubeeyay xoogaga wadiniyiinta khayro oo weerar culus ku qaaday dhammaan madaxdii talada kaga horeysay dawladda Sierra Leone oo xil sare ka qabatay AMISOM askari Mareykan ahaa oo lagu dilay Soomaaliya oo loogu magac darayo xarun caafimaad Kenya qareeno doonayay in Kenya ay ka baxdo kiiska badda oo miisaaniyadii laga jaray ama mushaarkoodii la jaray akhbaraadka Soomaalida ka baxsanna waxa ka mid noqonaya aaladda TikTok oo kamid ah waayadan dambe muuqaal baahiyaha baraha bulshada ku soo batay ama muuqaal baahiyaha baraha bulshada isticmaalkiisa aad ugu soo batay oo dunida walaac ka abuurtay daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena channelka Daynila TV ugu door corona intaan guda galin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan channelka subscribe saartaan sidoo kale gambaraalka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan u diyaar garooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan mooto bajaajle ayaa lagu toogtay magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidanka dawladda ayaa degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho ku toogtay wiil dhalinyaro ah oo ku shaqaysanaya mootada loo yaqaan bajaajta wiilka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Ismaaciil Maxamed Saciid waxaana gacanta ku dhigay askarigii dilka geystay ciidanka booliiska degmada Cabdulcasiis gaar ahaan kontaroolka xiibta liido kuwa ku sugan wiilka oo xabada ay kaga dhacday qeybaha sare ee jirkiisa ayaa isla goobta ku geeriyooday sida Daynila TV u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo goobta ku sugnaa dadka deegaanka ayaa inoo sheegay wiilka la dilay iyo askariga ka hor inta uusan falka dhicin in uu dhex maray muran intaasi kadibna ay xigtay in askariga uu toogto wiilka ciidamada dawladda federaalka oo hubka ay wataan loogu talagalay in ay ku ilaaliyaan shacabka ayaa waxa ay u muuqataa kuwa qoryaha ay wataan ku dhibaateeya shacabka inkastoo gadaal dambe ay dawladda federaalka Soomaaliya gacanta ku dhigto ama ayaga oo faldambiyeedka gacanta kula jira la qabto kulamo looga soo horjeedo maamulka Puntland ayaa ka bilowday gobolka Sanaaga degmooyin ka mid ah gobolka Sanaag ayaa waxa ka socda kulamo looga soo horjeedo maamulka Puntland kulamadan ayaa ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyay gudoomiyihii baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed odayaasha iyo qeybaha kala duwan bulshada gobolka Sanaag waxay si cad u sheegeen in aysan ka mid ahaan doonin maamulka Puntland maadaama gudoomiyihii baarlamaanka Puntland oo matalaad ahaan ka soo jeeday gobolka Sanaag si xoog ah xilka looga qaaday gudoomiyihii xilka laga qaaday ayaa dib ugu laabtay gobolka Sanaag isla markaana kulamada kala duwan la leh bulshada gobolka Sanaag banaanbaxyo ayaa ka dhacay degmooyinka gobolka Sanaag oo laga soo horjeeday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ay sheegeen dadka deegaanka inuu abaabulay qorshihii xilka looga tuuri lahaa gudoomiye Dhoobo madaxweynaha Puntland ayay sheegeen inuusan wixii haatan ka dambeeya ku xisaabtamin gobolka Sanaag kana tashan doonaan xukuumaddiisa safiiro ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa goor dhaweed ka degay wafdi ka socday safiirada dalalka caalamka u qaabilsan Soomaaliya safiirada Qatar iyo Turkiga ayaa ka mid ah safiirada gaaray Beledweyne waxaana halkaasi ku soo dhabeeyay mas'uuliyiinta maamulka Hirshabelle madaxweynaha Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayay kulan kula leeyihiin magaalada Beledweyne kaas oo looga hadlayay fatahaadaha ku dhuftay Beledweyne dawladda Qatar iyo Turkiga iyo dawladda Djibouti ayaa ka mid ahaa dawladihii sida weyn uga qayb qaatay gurmadka loo sameynayo shacabka magaalada Beledweyne maxaa ka jira in dawladda dhexe ay ciidamo si qarsoodi ah uga qoratay waqooyiga Galkacyo ee ay Puntland maamusho gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland Axmed Muuse Nuur
ayaa beeniyay in ay jiraan ciidamo dowladda dhexe ee Soomaaliya ay si qarsoodi ah uga qoratay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland. Waxa uu sheegay in wararkaasi yihiin been abuur, isla markaana aysan jirin hub iyo ciidan lagu wareejiyay dowladda dhexe ee Soomaaliya. Waxaase wax jira maaha, ciidan lagama qorin gobolka Mudug, colaad federaal ku soo duulayna ma jiro, ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur. Annaga heer gobol xiriir lama lihin dowladda federaalka ah, xiriir waxaa la leenahay dowladda aan ka tirsanahay. Xiriirka federaalkana waxaa leh xukuumadda sare ee ilaa heer madaxweyne ah, ayuu mar kale yiri gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland. Waxa kale oo uu sheegay in xukuumadda federaalka aysan ciidamo ka qoran karin gobolka Mudug ilaa Puntland iyo Villa Soomaaliya ka heshiiyaan arrimaha siyaasadeed ee ay ku muransan yihiin, ayuu yiri. Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in xoogagga wadaniyiinta la huweeyay. Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan mudanayaasha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in la huweeyay kooxda la magac baxday xoogagga wadaniyiinta ee uu sameeyay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mahad Salaad oo qoraal dheer soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook ayaa tilmaamay in maalin dhaweed degmo uu booqanayay gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish lagu qabtay 8 dhalinyaro ah oo huweysan, markii la xirayna la sheegay inay ka tirsan yihiin xoogagga wadaniyiinta, kadibna la sii daayay sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in aan xilligan loo baahnayn maleeshiyaad, isla markaana ay Soomaaliya leedahay ciidamo amni oo sifo sharci ah ku howlgala. Soomaaliya uma baahna guulwadayaal madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii Al-Shabaab dadka madaxa jabiya. Xoogagga wadaniyiinta gobolka Banaadir ee madaxweyne Farmaajo uu leeyahay gudaha dalka iyo dibaddaba waa laga baahinayaa, waxa ayna leeyihiin garab hubeysan oo bastoolado inta loo qeybiyay magaalada lagu sii dhex daayay. Maalin dhaweed degmo ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir oo gudoomiyaha gobolka booqasho ku tagay, waxaa la ii sheegay meeshii bulshada uu kula kulmayay in lagu qabtay 8 dhalinyaradaas ka mid ah oo bastoolado ku hubeysnaa. Markii ciidamada amniga qabteena kadib inta la soo wacay loo sheegay inay ka tirsan yihiin xoogagga wadaniyiinta, laguna amray inay si degdeg ah u sii daayaan. Haddaba waxaa la isweydiiyo mudan in maleeshiyaad hubeysan magaalada lagu sii dhex daayo micnaha ay dowladnimada u leedahay yaa noo sheegi kara, ayuu yiri. Madaxweynaha waxaan leenahay Soomaaliya ciidamo amni oo sifo sharci ah ku howlgala, shuruucda dalka iyo xuquuqda shacabkana ilaaliya ayay u baahan tahay, ee guulwadayaal madaxweyne Farmaajo leeyahay oo sidii Al-Shabaab dadka madaxa jabiya uma baahna. Sidaas waxaa Facebookiisa ku soo qoray Xildhibaan Mahad Salaad. Ra'iisul Wasaare Khayre ayaa weerar culus ku qaaday dhammaan madaxdii talada kaga horeysay. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa weerar afka ah ku qaaday siyaasiyiinta Soomaalida, gaar ahaan madaxdii isaga ka horeeyay talada Soomaaliya. Khayre ayaa sheegay in markii isaga iyo madaxweyne Farmaajo ay la wareegeen xafiiska ay u yimaadeen habdhaqan siyaasadeed oo aad u xun, isla markaana ka duwan habdhaqanka siyaasadeed ee ka jira caalamka. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in xilligaasi la aaminsanaa in siyaasadda lagu raadiyo dan gaar ah, laguna lunsado dhaqaale sida uu hadalka u dhigay. Waxaan u nimid dhaqan ah in la aaminsan yahay inay siyaasaddu tahay wax dan gaar ah lagu raadsado. Halkan waxaan ugu nimid dhaqan la yiraahdo aan siyaasi noqdo si aan wax u helo, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. Waxa kale oo Ra'iisul Wasaaruhu sheegay inay ceeb ahayd in la isla xisaabtamo iyo in la wada shaqeeyo si loo horumariyo dalka. Ugu dambeyn wuxuu tilmaamay in dhammaan ay bedeleen habdhaqameedyadaasi, isla markaana laga gudbay dhibaatooyinkii jiray. Haatanna dowladda Soomaaliya ay la jaan qaadayso siyaasad ahaan dowladaha asaageeda ee ka jira dalalka caalamka. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii dambe madaxda dowladda ay eedamo xooggan kala kulmayeen madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo horey ugu soo fashilmay talooyinka dalka. Dowladda Sierra Leone ayaa xil sare ka qabatay AMISOM.
howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa magacaabay taliyaha booliiska cusub ee AMISOM kaas oo shaqada bilaabay Jimcihii shalay. War ka soo baxay midowga Afrika ayaa xilka taliyaha cusub ee ciidanka AMISOM qaybtooda booliiska loogu magacaabay Agustina Mcnuza oo ka soo jeeda dalka Sierra Leone. Francisco Mandera oo ah wakiilka gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya sidoo kalena ah madaxa howlgalka AMISOM ayaa u hambalyeeyay taliyaha cusub ee shalay shaqo bilaabay. Booliiska AMISOM ayaa tababara booliiska Soomaaliya waxaana ay dabagal ku sameeyaan howlaha booliiska Soomaaliya waxa ayna kala qayb qaataan howlgallada qaarkood waxa ayna kala taliyaan howlgallada sida qaaska loo fuliyo. Kalila ayaa dhinaciisa sheegay in beesha caalamka ay dalkiisa ka bixisay dagaallo sokeeye oo socday 1991 ilaa sanadkii 2002 isaga oo ka faa'iideysanaya khibradahaasna uu awoodiisa isugu geenayo sidii guul looga gaari lahaa howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ee uu hadda ka yahay taliyaha cusub. Aad ayaan ugu faraxsanahay in aan dib u celiyo abaalkii beesha caalamka ugu garab istaagtay dalkayga xilligii adkaa ee dagaalada sokeeye. Wax weyn ayuu noo taray dadaalkii beesha caalamka, ayuu yiri taliyaha cusub ee booliiska AMISOM. Waxa uu leeyahay 30 sano oo khibrad ciidan booliis dalkiisa ah waxaana uu ka soo shaqeeyay qeybaha kala duwan ee booliiska dalka Sierra Leone. Askari Mareykan ahaa oo lagu dilay Soomaaliya ayaa magaciisa ama loogu magac daray xarun ku taala ama xarun caafimaad. Xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee dalka Mareykanka ku matala gobolka Arizona ayaa isku raacay in magaca laga bedelo xarun caafimaadka ee lagu daweeyo halyeeyada Mareykanka ee ku taala gobolka Arizona. Martha Amseli iyo Ari Arzi oo ka tirsan aqalka sare ee Mareykanka iyo Anandi Bekis oo ka tirsan aqalka hoose ayaa saxiixay sharci magaca looga bedelayo xarun caafimaad oo lagu daweeyo halyeeyada ciidanka Mareykanka. Xildhibaanada ayaa isku raacay in wadadaas loogu magac daro ama lagu qoro boorkeeda Alexander Karanda oo 8 Juun 2018 lagu dilay koonfurta Soomaaliya markii goob ay ku sugnaayeen uu ka dhacay madfac ay ku rideen Al-Shabaab. Alexander Karande oo 26 jir ahaa ayaa waxaa 2 jeer loo diray dalka Afghanistan waxa uuna la dagaalamay Taliban waxaana kadib loo soo diray Soomaaliya si uu ula dagaalamo faraca Al-Qaacida ee Soomaaliya ha yeeshee gacantooda ayuu ku baxay. Ehelkiisa, saaxiibadiis iyo dadka deegaanka ayaa aad u soo dhaweeyay aragtida xildhibaanada Mareykanka waxaana ay ku baaqeen in qof kasta oo u dhinta difaaca dadka Mareykanka loo sameeyo maamuus gaar ah sida qoraalka lagu yiri. Kenya ayaa qareeno doonayay in ay ka baxdo kiiska badda miisaaniyadii laga jaray. Koox qareeno ah oo ku doodaya in dowladda Kenya aysan sii wadin dacwadda badda ee kala dhaxaysa Soomaaliya ayaa sheegay in shaqadoodii istaagtay waxa ayna sheegeen in miisaaniyadii ay ku shaqeyn lahaayeen laga joojiyay sidaas darteedna kiiska in ay sii wadaan ay laftooda ku adkaatay. Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayay u gudbiyeen dacwad la xiriirta in Kenya ka laabato ICJ waxaana loo sheegay in kiiskooda la dhageysan doono 10 November ee sanadkan. Miisaaniyadda ay qorteen ayaa gaaraysa 32.1 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah ha yeeshee baarlamaanka Kenya ayaa u ansixiyay 14.5. Wasaaradda Maaliyadda ayaase ka sii jartay qayb kale waxaana u soo hartay oo keliya 12.5 bilyan oo shilinka Kenyaanka ah taas oo meesha ka saartay in ay sii wadaan. Wasaaradda Maaliyadda Kenya ayaa sheegtay dakhliga soo galay oo yaraaday darteed ay ku adkaatay in ay meel mariso miisaaniyadda uu baarlamaanka u qoondeeyay. Qareenada isu xilsaaray ama isu xilqaamay in Kenya ay ka baxdo kiiska badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya. Kiiska badda ee Kenya kala dhaxeeya Soomaaliya waxa uu ka mid yahay meelaha miisaaniyadda dalka ugu dhaqaalaha badan. Qareenada Kenyaanka ah ayaa aaminsan in Soomaaliya ay ku guuleysanayso dacwadda badda isla markaana Kenya noqonayso dal aan bad lahayn haddii Soomaaliya loo xukumo.
ugu dambeyntiina TikTok ayaa dunida walaac ku abuurtay. Warbaahinta casriga ee ay bulshada ku xiriirto ayaa saameyn badan ku yeelatay qaabka ay dadku u kala warqaataan. Arrintan ayaa ah mid walaac ku abuurtay waalidiinta iyo sharci dejiyayaasha caalamka. Sababta walaacan keentay ayaa ah qaabka fudud ee dhalinyaradu ay ugu xirmaan baraha xiriirka bulshada. TikTok ayaa ka mid ah baraha xiriirka bulshada ee sida weyn ay u xiiseynayaan da'yarta caalamka, waxaana wararka ay sheegayaan in barta TikTok oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay soo dejisteen balaayiin dhalinyaro ah. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa walaac badan ka muujiyay saameynta ay ku yeelan karto nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda shacabka Mareykanka. Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa si joogto ah u isticmaala TikTok, waxa ayna soo geliyaan muuqaallo qaarkood anshax daran. Guud ahaan warkii aad kala socotay channelkeena Daily TV daawada halkan ayaan kusoo gabagabeynaya. Intaan warkan warkii kulmi doono, nabadgelyo.